nin sirdoonka Israa'iil ka mid ah ayaa arrin uu sheegay anagoo dhan naga yaabis. Ninkan wuxuu sheegayaa in Turkiga uu Soomaaliya gudaheeda ka dhisanayo xarun gantaalada Typhoon supersonic loo yaqaano oo ka mid ah gantaalada ugu casrisan Turkiga maanta uu sameeyay maadaama Turkiga uu yahay dal si xawli ah ku socdo dhanka militariga iyo dhaqaalaha. Anaga maxaa naloo sheegay marka dadka xasuusto anaga waxaa naloo sheegay Turkiga inuu dhisanayo xarun satellite-ka uu ka tuurto koonfurta Soomaaliya gaar ahaan aaga Muqdisho. waa tii dhul far badan geedaha laga jaray waa tii meelaha qaar al-shabaab laga riixay Turkiga la dijiyay adiga waxaas oo ogeedeen anaguna waa dabaaldegnay waxa u dabaaldegnay maadaama Soomaaliya laga yaabay inay noqoto ama loo ansixiyay inay noqoto xarunta satellite-ka cirka loo tuuraayo ee Turkiga uu tuuraayo meeshii laga dhisay waxay leeyihiin hadarta ninkan sirdoonka ah wuxuu soo daabacay in waxa la dhisaayo aysan satellite ahayn ay tahay meel laga tuurto ama Turkiga uu ka tuuran doono gantaalada shanqartooda aan la maqlin supersonic ah ee xooliga ku socdo ee loogu talagalay in Israa'iil lagu weeraro sidaas ayuu soo daabacay sheekada marka meeshaas marayso horta ninka wuxuu sheegayo aniga mana beenin karno mana rumayn karno waa wax uu soo qoray waay laakiin maadaama sirdoon uu yahay oo qoladan Israa'iil uu ka tirsan yahay kulay waxay aaminsanahay in ayaga dhansaas ay aaminsan yihiin oo Soomaaliya ay martigelinayso gantaalo casri ah oo lagu bartilmaameedsan doono Israa'iil halkaas igu qabo marka maalmahan waxaa soo ifbaxay colaad adag oo laga yaabo sida Hindi iyo Pakistan ay isugu dhaceen oo kale sida Cambodia iyo Thailand ay isugu dhaceen oo kale dadka qaar waxay leeyihiin colaadda soo socota ee diyaaradaha la isla dhici doono waa Greega iyo Turkiga saas ma la socotay waxa soo kordhay marka horta ogtihiin Greega dhibaato far badan oo dhaqaalu maray oo militarigiisa ma dhisneen bilihii la soo dhaafay marka Greega asagoo og in Turkiga uu si dardar leh ku socdo cadawgiisa koowaadna uu yahay xuduud yaroo bad ahna ay leeyihiin Greega uu soo dhisay sidoo isku soo dhisay wuxuu heshiis dhanka militariga ah la galay Israa'iil fiiriya Israa'iil ayaa waxay soo degtay Greega iyo Turkigana waa isku dhow yihiin waa laba cadow oo jasiirado waxaa jiro hadda Greeg uu gacanta ku hayo oo lagu murunsan yahay oo Turkiga uu leeyahay aniga askale wala kala celceliya ilaa hadartan hadda shalay ugu dambe aan dhahay darada ugu laba maalin ka hor waxa isxabadiyay ciidamada badda Greega iyo ciidamada badda ee Turkiga isxabadiyay Turkiga wuxuu leeyahay drone la soo diraa habeen iyo maalin dhulkayga la sawirtaa sheekadaasna waxay ku eedanayaan in Israa'iil ka dambayso Israa'iil iyadoo saas ay tahay oo hadda Greega degtay ayaa haddana waxa maanta soo kordhay maantadan oo Jimco ah in gantaalo casri ah oo Israa'iil ay samayso Greega inuu iibsaday oo la geeyay oo la suray jasiiradaha lagu murunsan yahay taasoo si cad ku tusayso in Israa'iil iyo Greega ay dagaal la rabaan Turkiga warkaas macadi ah ujeedaan maqaalkaas marka su'aasha weydiinta mudana waxay tahay maxay sameyn doonaan qoladan Israa'iil waa hadii arrinkan ay run tahay oo meel u dhow Muqdisho ama shabeelooyinka meesha aad taaba anaga ilaa hadda ma garanayno waa top secret oo fahmay oo Turkiga ay leeyihiin gantaalo ka dhisanaya Turkiga culays haysta jiro ay fahansiye maalin dhaxda ayaa xasuusto Erdogan markuu imaanay Washington oo Trump ay kulmeen Turkiga waa dal NATO ah Turkiga wuxuu ilaa hadda badigoobayaa diyaaradaha F-35ka oo Mareykanka uu sameeyo fifth maxaa lahaa generationka ah diyaaradahaas waxaa haysto Greek waxaa haysto Israa'iil Masar waa loo diiday Turkiga waa loo diiday dalalka kale ee haysto dhan waa iyo xitaa Pakistan waa loo diiday Europe taasi waxaas Mareykanka sameeyo diyaaradaha casri ah waa kuwa Iran marka Israa'iil Iran ishayeen kuwa Iran lagu duqeeyo oo goobahooda militariga lagu duqeeyo waay diyaaradahaas Mareykanka marka inuu diido hubkaas uu dhaho kaama gidaayay Turki waxa sabab u ah oo jalafadaas dhigay Israa'iil Turkiga marka NATO haba iska ah NATO hadda mugtahay way si daciifaysa oo wax si heesan doono uma eko Mareykanka xitaa waa tuu hadda lug kala baxay hal luga ugu jirto waliba ee u muuqdo inuu kala bixi doono Europe-tana waa isku timid ay dhaheen war NATO ma ahane annaga aan isdhisno Europe-ta marka ayada hadda isku mashquulsan oo dhaqaale inay geliyaan difaacooda ku jiro Turkiga marka wuu ogyahay vulnerability aad u far badan ay jirto diyaaradahan
aad ugu baahan yahay oo maanta haddii dagaalku uu qarxo ayaga iyo Greega qacda ay bilaawato uma muuqanayso in Turkiga guul buuxda uu gaari doono maxay yeelay Greek wuxuu haystaa diyaarada 35ka militarigiisa aad uma adko laakiin heshiiskan hadda Israa'iil ay la galeen iyo jaajusnimadii basaasnimadii waxaas adiga culays zaa'id ah ku noqon doono waxaan rabaa inaan soo gabagabeeyo marka waxay Israa'iil waxay ayagu arkaan Turkiga sheekadiisa qariiradan ila fiiriya aan sawirka ka qaaday oo calaamad ay geliyay Turkiga wuxuu heshiis la Turkiga wuxuu saldhig ku leeyahay meeshan Qobrus ee dhahaan Cyprus oo markii aad fiirisid dhanka Syria oo hadda Israa'iil ay xoog ku sii galayso oo Turkigan fiiriya Turkiga waa loo diiday inuu Syria soo galo Turkiga marka ciidanka Syria iyo hubkii iyo maalkii wixii dhan wuxuu geystay Qobrus oo liifka hadda saas u saartid Qobrus aad yani qori meesha la fadhisid shiishadiisa ay fiican tahay Israa'iil waa arkaysaa koraa ka arkay madaxtooyada arkaysaa Netanyahu mafahad wata meesha ku taal baash marka halkaas ayuu ciidan fara badan soo dhigtay Turkiga waliba hadda wuxuu heshiis buuxa la galay Liibiya waxa xoreeyay Turkiga sida la socotaan Liibiya marka hadda Israa'iil Liibiya waxay u haysataa meel yar oo Turkiga uu leeyahay Masarne wuxuu saaxiib leeyahay Turkiga fiiriya qariirada Soomaaliya muhiimka inay fahantaan hadda Soomaaliya Turkiga haduu xaruntan ka dhisto oo ay ku jirtaa marka oo dheer ay ku jirtaa sheekada marka dhankan Iran kulay ciidan abaabul iyo hadda Iran maanta badda weyn ee Muqdisho agteeda Soomaaliya agteeda ah waxay ka tijaabiyeen gantaalo noocooda hore loo arag Iran tijaabinayso marka Israa'iil waxay u aragtaa Cusmaaniyiintii inay koobaabin gelinayaan waa sababta ku kalifayso waliba degdegta sida degdegta ah in Greega hadda gantaaladan loo geeyo jasiiradaha gantaalada la dhigo oo Turkiga saas baasha loo aadiyo marka dhankaas waxba ka soo karkaraayo baasha inay qarxi doonto iyo inay muddo qaadan doonto aniga ma ogin jawaabta arrinkan dawladeena uga fadhinaa Soomaaliya ninkan uu sheegay ee leeyihiin waxaan soo ogaanay meeshaas in gantaal laga dhisaayo maxay waxa leeyahay aniga waxaan isleeyahay dib ay noo soo jiidi doontaa oo waxa laga yaabaa maamul goboleedyada hadda Soomaaliya ka sii cararaayo in heshiisyo difaac iyo military iyo la galaan boosaas waxa yaalo gantaalka cirka lidka diyaaradaha oo Israa'iil SMS ay hadda boosaas yaalo marka ma laga yaabaa in ayagoo lid ku ah Turkiga sheekadiisa hadda koonfurta Soomaaliya ka socoto in dhankan kalena Israa'iil ay soo degto si meeshaas difaac loo wada galo waayahay dagaalka socdo bariga dhexe qodob weyn ayaa ku soo kordhay ninka ugu horeeyay ee mas'uul sare ah xil ka hayay dalka Mareykanka ayaa markii ugu horeysay dagaalka Mareykanka uu Iran la galay awgeed jagadii iskaga casil ninka idin hor yaalo magaciisu waxa loo yaqaanaa Joe Kent ama Joseph Kent wuxuu ahaa madaxii dhamaha wuxuu ahaa isuduwaha qofka ugu sareeya madaxa hay'adda la dagaalanka argagixisada waxa loo yaqaan counter terrorism ee hoos imaato CIA-da ninka marka waa ninkii ugu horeeyay mas'uul xil sare ka hayay dalka Mareykanka ee isaga tago jagadiisa ama xilkiisa sabab la xiriira in uu leeyahay dagaalkan waa dagaal qalad ah waxyaaba uu ninka odaga ah jagada uga tagay oo xusay saa ujeedaan wuxuu soo dhigay bartiisa Twitterka wuxuu leeyahay dagaalkan Israa'iil ayaa ka caqli badan Mareykanka oo dagaalka gelisay iyadoo wada hadal uu socdo shaqada meel fiican ee mareyso waa laga caqli baday marka shaqadan ama dagaalkan oo dhan Mareykanku uma diyaarsaneyn inuu galana ma ahayn fiiriya ninkan waa ina fahantaa wuxuu og yahay xogo aad muhiim u ah ayuu ninka hayaa ninka Joe Kent xogo muhiim ah oo la xiriiro dagaalka waa nin anaga waxaanan arkin arka way asaga maadaama jaga sare uu hayay Iran iyo xaalka sida uu soo wax kaagsi daran ninka odaga maan jigada ka tagay inta uusan xilkan qabanin wuxuu ahaa askari Mareykan ku saraakiisha ugu sarsareeso wuxuu ka soo dagaalamay dhul fara badan Iraq Afghanistan Kuwait ilaa xitaa Djibouti mar fadhigiisa uu ahaa ciidamada Mareykanka saldhigyada ay ku leeyihiin Carabtii oo dhan Sacuudi adin Kuwait adin Iraq adin Bahrain adin Qatar adin Jordan kulli uu joogay uu tagay ninka marka waa nin wax badan og waay xaalku fiiriyay Trump bana soo magacaabaya wuxuu kamid ahaa kooxda Trump uu kamid ahaa maanta iskaga tagay jagadii wuxuu leeyahay dagaalkan Israa'iil anaga caqli badan oo nijiidna gelisay anaga inaan galna ma baahanba waa ko wuxuu kaloo leeyahay halista la sheegayay ee beenta la abuuray ee Iran halis soo wada Iran halis ku ah iyo waxaas waa ka kaculeeya sida ujeedaan waxa kama jiraan waayo oo Iran wax halis ay soo wada ma leh dagaalkan wuxuu leeyahay sida ujeedaan
anaga bilawnay ee Iran ma bilaawan dagaalkan Mareykanka ka mas'uul ah wixii dhinto wixii qarx wixii asaga ninkaas soo qoray waayay waxay u tahay waa talaabada ugu horeyso halis ku ah dawladda Trump gudaha waxay u muuqataa kooxdiisa laftarkeeda in laba ay u kala jabto kuwa aad u tiriyar oo dagaalka taabacsan way jiraan waa ina fahantaa xisbiga Trump uu ka tirsan yahay loo yaqaan xisbiga jamhuuriga xisbiga waxa ka soo dhex baxay dad aad u tiro badan oo Trump xisbigiisa ah ee dagaalkan diidan qalad u arkaba maxaa anaga qataatadan dhibkan noo gelinaysa Trump Israa'iil dagaalkeeda waay iyada la boodboodo iyada iska cilisa deerato laakiin anaga in laga aqla badiyo nala jiido dagaalkan la dhex geliyo meel hadda uga baxnana ma leh warka idin soo koobo marka mas'uulka ugu horeeya iscasili aniga ayaa hadda idin cadeynayo in iscasiladan aysan aanti ugu dambeysay rag fara badan oo jagadan ka tagi doono iyo dumarba maalmaha soo socdo hadii dagaalka saan uu sii ahaado waa arki doontaan rag fara badan oo xilkooda iskaga tagay iscasilaadiyo badanayso iyo Trump oo dawladiisa meel xun dabcan ay gaari doonto haduusan saan wax ka bedelin waayahay taas oo aysan Soomaa waxa kala soo kordhay Israa'iil mar alaali markay dareento in Mareykanka uu arkay qof Iran ah ama mas'uuliyiinta Iran kamid ah oo wada hadal la geli karo qofkaas weydishaa Israa'iil mar alaali markii la arko hadda tusaale insina saaka sida ogtihiin saxaafaddu dhan waxay ka hadlaysaa qaarijinta la qaarijiyay Ali Larijani ninka cuslaa maalmahan dhan sheekooyinkiisa iyo waxyaabo uu qoray idin soo bandhigay wuxuu kamid ahaa ninka odaga ah mas'uuliyiinta dawladda mas'uuliyiinta Mareykanka ninka ay farmuuqayeen oo islahaayeen ninka waa nin aqli badan ninkaas waa nin aqli badan ala hadalno ala fariisano Iraniinta kuwa ugu aqli badan ku jira la fahmi karo oo la sheekaysan karo waa Baysani xariif waay yaa dhahayo mas'uuliyiinta Mareykanka dhahayo Israa'iil haga daba tagtay waa sida wararka ay sheegayaan ha qaarajis ninkii nin alaali ninka la farmuuqo oo la isdhihi karo Mareykan in ninkaas is afgaran karo waa la dilaa yaa dilaayo Israa'iil dilayso Mossad iyo waxba meelaha u joogo waa la qarxiya ninka odaga ah intaan ku kale u galin ninkan wariyahan BBC la shaqeeya ku soo qoray Twitterka sida u jeedaan wariyaha laftirkiisa oo Ingiriis ah oo BBC la shaqeeya ayaa wuxuu leeyahay aniga iyo Larijani dhowr jeer as aragnay waa nin aqli badan waa nin garaadkiisa u sareeyo xariif lala xariiftami karo waa nin xariif ah oo lala xariiftami karo oo dhihi karo Ali Larijani hay warkasi qadiida ku weyn waa sax Iranimada qadiidan ceeb ma aha qof walba in qadiidis ku weynaato waa wax muhiim ah ninka odaga marka nin aqli badan qadiid ku weyn tahay laakiin haddana adduunka la xariiftami karo aha Israa'iil waxay leedahay waa dilnay war odayga weynaa Khamenei cunugiisa hadda jagada loo dhiiba commentedsan laakiin odagii Abaronaaba dadka la hadli jiray odagii Abaronaaba oo Europe intuu waco Ruushka la hadli jiray Shiinaha la hadli jiray oo wada xaajood lala xaajoon kareeba odaga Baysani ah mid commentedsan hadii yimid odagii dileen way niyo marka dabcan waxa idin muuqanayso Israa'iil dagaalkan Trump ugu faa'iideysanaa doqonnimadiisa ugu faa'iideysanaysa way horboodayaan marba dhinac u boodayaan asagana iska daba socdaa ilaa hadda laakiin aniga marka qiyaasay hoos u ka karkaraya ninka odaga ah markii iscasilaad hadda bilaawatay si badato waxa arki doontaa Trump oo dhahayo fiiri Iran ay waxa samayso aniga waa iga guuleysatay waa soo baxay banaanka Mareykankana jooga markabkii weynaa waa aragteen saaka waa maqashan saxaafada Gerald Ford kii weynaa diyaaradaha qaadayay daba ka kacay dabcan Mareykanku wuxuu leeyahay dabkaas gantaal ma ahayn Iran waxay leedahay anaga duqeyn adigu waxay noqotaba cid runtii noo sheegaysa ma naqaano laakiin markabku iskaga soo cararay meesha Greegu dib ugu soo laabtay marka sheekada waxay u muuqataa in gudaha Mareykanka gaar ahaan xisbiga dhamaa ee Donald Trump oo la aaminsanaa inay iswada wataan laba loo kala jabay bash dagaalkan inuu qalad yahay ayaa soo baxday